Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha garbahayga oo kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaana xafsaa youtube-ka aad naga daawaneysaan waa xafsa channel barnaamijkan waxaa idin soo gudbisa islaaniga walaashin xafsayd soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan allah subxaana watacaala idinka baryayaa cimri dheer cibaado subayn oo allah idin siiyo insha allah waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin aniga waa fiicanahay alxamdulilah waxaa inoo soo socday kitaabkeeni imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gudagalin muuqaalkeeni maanta ugu horeyn haddii aad tahay marka ugu horeysay aad soo booqatay channelka fadlan subscribe saar haddii aad hore nool joogtaan like saar u share garee asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 51 biidnillah bismillaah عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه نبيغا نبدغلي نحريس كلكي ساهاتي وحو دهاي من أحدث في أمرنا هذا قفكي كسو بيريو دينتيني وحان كمت أهين وكسو كرديو ما ليس منه وان كمت أهين فهو رد waa lagu celinayaa ayuu dhahay nabiga man axdasa fii amrinaa haadaa qofkii kusoo kordhiya diinteena kusoo biiriyaa maa laysa minhu wax aan ka mid ahayn fahuwa raddun asiga ayaa lagu celinayaa oo macnaheedu tahay diinta waxaan oo qiil loo hayn amba daliil loo hayn qofkii sheega waxaa sidaas iyo sidaas waaye dhaho aan daliil loo hayn xadiis oon daliil ugu hayn aayad quraan daliil loo hayn asiga ayaa lagu celinayaa waxaa loola jeedaa wax walba oo diinta lagu soo kordhiyo aan qiil loo hayn lama aqbalayo wax walba oo diinta lagu soo kordhiyo oo faa'iido u lehne waa wax oo faa'iido leh waa la aqbalayaa tusaale haddii la qabto tartamo qur'aan ah daliil looma hayo xilligii nabigeena lama sameyn jirin laakiin waa wax wanaagsan waxaan lagu xoojinayaa diinta waxyaabahaas oo kale lama diidayo laakiin waxyaabaha hadda jira camal axaadiista manawaalka oo nabiga xaggiisa aan ka imaan lagu been abuuranayo aan daliilada loo hayn lama aqbalayo isku soo gunaanud warka nabiga wuxuu dhahay man axdatha fii amrinaa qofkii kusoo biriya kusoo kordhiya diinteena maa laysa min waxaan ka mid ahayn fuuradun waa lagu celinayaa wax walba oo diinta lagu soo kordhiyo aan qiil loo hayn lama aqbalayo wax walba oo diinta lagu soo kordhiyo faa'iido u lehne waa la aqbalayaa xadiiskan waxaa isku waafaqay imaam bukhaari iyo muslim insha allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen asxaabteeda qaaliga guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka iyaga sidoo kale waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saarta ilaaw inaad like gareyso asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh